dambeeyey deegaankii shalay lagu dagaalamay ee dawacaaley ee hoostaga degmada xarshin gobolka faafan ee dowladda deegaanka soomaalida dagaalkii cusraa ee shalay dhacay iyo xogii ugu dambeeyey iyo maanta xaaladda guud ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kaleeto iyadana mid iyo labo aan ka dul istaagi doonaa abaabulka dadka shacabka ee dowladda deegaanka soomaalida oo hadduu indhaha kala qaaday ujeeddada ciidamada halkaasi loo keenay ee loo soo abaabulay waxaan sidoo kaleeto iyadana aan dul istaagi doonaa somalilan waxay tiri anigu lama fadhiisanayo dowladda deegaanka soomaalide federaal baan rabaa inaan kala hadlo xaaladda dawacaaley oo gudaha dowladda deegaanka soomaalida ku taalla federaalkuna waxay dhaheen annaga mid noo taallaba ma ahee shaqadaa waxay u taallaa dowladda deegaankaas xukunta ayay shaqada u taallaa waanad ku qasbantihiin inaad la fadhiisataan waftii uu hogaaminahayo ninkii afka xumaayo odaygii marmaroorsanaa ee amniga ugu qaabilsanaa dhinaca somalilan xukuumadda ciro ee shalay qoraalka iyo yaqsiga ahaa soo qoray waxa weye waxaad aragtay boggooda facebook tvgooda qaranka telefishinka qaranka ay u yaqaanaan ku baahiyey ayaa hadda ku sugan tog wajaale weliba qeybta dhinaca dowladda deegaanka soomaalida ayay ku sugan yihiin waxay halkaasi kulan kula qaadanayaan wafdi kale oo uu hogaaminahayo wasiirka madaxtooyada ee dowladda deegaanka soomaalida iyadana waan dul istaagi doonaa wararka hordhacee ka soo baxaya qodobada labada dhinac ay kala sitaan ee laga doodayo iyo wejigabaxa ceebta ku dhacday dhinaca somalilan ee la xidhiidha arrinta dawacaaley ayaan iyadana dul istaagaynaa waxaan dhinaca kaleeto iyadana dul istaagi doonaa hoggaanka nabadgeliyada ee dowladda deegaanka soomaalida jawaabtii uu siiyey dhigiisa amniga ee dhinaca somalilan qodobadii iyo yaqsiga ahaa ee uu soo saaray ayaa isagana jawaab adag oo uu siiyey ayaan iyadana dul istaagaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga aynu ku bilownay horta xaaladda dawacaaley hadda way degan tahay laakiin isaaq ama idoor midka u taqaanaba abaabul bay wadaan weli abaabulkii iyo dulmigii kama aysan tanaasulin abaabulkaas ay soo wadaan waxay doonayaan inay mar kale dagaal ay qaadaan arrintanna arrin shacabba ma ahayne waxay ahayd arrin laga soo abaabulay hargeysa oo muddo dheer la diyaarinayay dabcan ciro hadda unbuu ku baraarugay isagaa la dhihi karaa laakiin xukuumaddii ka horreysay baa diyaarisay oo meeshan ciidankan ku diyaarisay ku talagal buuna ahaa loogu talagalay ayuu ahaa walow shalay lasoo afjaray xaaladda hadda deegaankuna degan yahay ciidanka new booliskuna ay gacanta deegaanka ku hayaan haddana laakiin abaabulka kama aysan tanaasulin oo weli gurmad ayaa iska soo daba dhacaya iyo qaylo dhaanta hoogayay ba-ayey iyo kaca iyo dadka difaaca iyo hala kaco ayaa ka socota gudaha somalilan gaar ahaan deegaanada isaaqu ay ka degaan mar kale inuu dagaal culus uu ka dhacay waa suurtagal inuu weliba dagaalkii kii hore ka daran oo lagu hoobto uu ka dhaco waa suurtagal taas bayna u badan tahay oo weliba dagaal lagu kala bixi doono oo deegaan badan oo maanta gacanta isaaq ku jirta lagaga qaadi doono inuu dhaco waa suurtagal saansaantiisuna way muuqataa haddii ay la jooji waayo abaabulka iyo dulmiga deegaanadan lagu hayo weye shacabka dowladda deegaanka soomaalidu hadda unbay indhaha kala qaadeen markay arkeen cirifkii ugu dambeeyey ee xeebtii badda oo reer sheekh isaaq ay ciidamo ku diyaarinayaan oo deegaankii soomaalida ay u soo wadaan hadda unbay arkeen oo ay waxa weeye ay indhaha kala qaadeen waxaa la arkay in dhulkii duulaanba lagu soo yahay oo reer sheekh isaaq 2025 oo hadda soo gelaysa ayba dhulkii ogaadeen iyo hunguri ka hayaba oo sida ay u soo ordayaan oo ceelashan iyo nimcadan iyo barwaaqadan qotonta ay doonayaanba inay ruf siistaan oo dhul hadda ay qaataanba oo ogaadeen baaba dhulka xoogaynaababa laleeyahay bal ayaa darada dhacday shacabku waa kaceen abaabul baa socda oo lagu taageerayo xukuumadda lagu difaacayo dhulka ogaadeenya lagu ilaalinayo amnigiisa shacabka badqabkooda lagu ilaalinayo reer sheekh isaaq markaa waxay ka faa'iidaan bay leeyihiin haddii cashirkii shalay ay ku taamila qaadan waayaan ka soo socdaa ka darnaan doono oo ka xiisad badnaan doono oo ka dhimasho badnaan doono haddii aysan isgaranin oo hadda aysan isqabanin oo abaabulka iyo dulmiga ay dhulka ku soo qaadeen ay joojin waayaan taasi waa mid ah
dhinaca kaleeto shalay waxaan ogsoonayn qodob muhiim ah idiin soo socdo oo wafdiga Somaliland iyo isdiidooyinka waxa ay ku doodayaan shalay waxaan ogsoonayn warqad bay soo saareen wasaaradda arrimaha gudaha amniga dhahne ee Somaliland bogooda Facebook ee telefishinka qaranka ay u yaqaanaan bay ku baahiyeen qodobo dhowr ah ku qornaa laakiin saddex qodob ayaa ugu xisaab badnaa oo ummadda Soomaaliyeed ay la yaabtay midu waa mide waxay dhaheen ciidanka new booliska ayaa afduubay odayaal dhaqameed ka soo jeeda Somaliland oo deegaanka Dawacaalay u tagay nabadaynta iyo daninta colaadda halkaasi ka taagan waa Somaliland odayaal dhaqameed Somaliland ka soo jeeda oo deegaanka Dawacaalay oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida u tagay nabadayn iyo damin colaadeed ayay ciidanka new boolisku afduubeen xukuumaddu maxay ka ogay waa dawladda deegaanka Soomaalida ay dhaheen oo iyaga isku qireen dawladda deegaanka Soomaalida miyaa odayaasha u yeeratay waa dabbi weyn oo Somaliland ay galeen way waa qodobka koobaad waa qodobka labaad waxay dhaheen arinta Dawacaalay hadday nahay jamhuuriyadda Somaliland waxaan kala hadli doonaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kula xisaabtami doonaa xasuuqa dawladda deegaanka Soomaalida ay halkaasi shacabka ugu geysatay waa qodobka saddexaad waxay dhaheen shacabku way istifaacayeen oo way iska celinayaan oo waxa weeye xaq bay u leeyihiin inay iska difaacaan cadow ku soo duulay waa meeqa dambi bay gashay Somaliland iyo gashay meeqa dambi ayay Somaliland gashay saddex dambi bay gashay iyadoo saddexdaad dambi loo hayo dawladda deegaankuna ay ku gaabsatay Somaliland waxay ka wado gudaha dawladda deegaanka Soomaalida waa gogol dhaaf siyaasadeed ay ka wado ayaa waxa weeye ay ku jawaabtaan ka wada yay maanta wafti soo direen wajaalay ka gudubeen wajaalada kale dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ayuu shirki ka socdaa dawladda deegaanka Soomaaliduna waxay wadataa qodobo adag iyo dambiyadaas bay rabtaa inay ku soo ogto wararka hordhaca halka iga soo gaaray waxay sheegayaan inay wajigada ceebeed oo siyaasadeed ay kala kulmeen kii qoraalka soo qoray wasiir Cabdallah kii amniga ee Somaliland oo asagu waftiga hogaaminayo odayga gacanta way hogaaminaya in la yiraahdo stupid baa lagu yiri hadda dagaal diyaar u tahay banaanka soo istaag baa la yiri waan dagaalamaynaa laba maamul baa nahay hadda iska ka celin karto waan dagaalamaynaa halka soo istaag baa la yiri sheekh stupid baa tahay baa la yiri khaa'ina waliba baa tahay baa la yiri waxaan la hadli karnana maaha iyaguna markii hore waxay dhaheen anagu federal baan la hadlay ceebtay dhex fadhiyaan bay ogaayeen federal baan la hadlaynaa baa la yiri adeer meesha dawlad baa ka talisaa la yiri maamul xun oo laciifatiin oo maamul goboleedkaas baa idin dhigmeen la hadla baa la yiri oo waliba idinka iniga dawlad baa meesha joogtay dawladda deegaanka la hadla baa la yiri iyada waad ku qasbantiin wasiirkii madaxtooyada loo soo diray oo la yiri bal ordo u tag ayaguna taliyaal iyo wasiiro ayay isku soo raaceen hal wasiir baa loo soo diray wasiir Xuseen Qaasim baa loo soo diray oo la yiri ordo la fadhiiso bal u tag waxay dhahaan arag baa la yiri indhuhu ka raacay wuxuu yiri wadaad tarantiin deegaanka waa deegaan Soomaali maxay idinka quseeyaan leeyahay way adodayaal soo dirteen way ciidamo soo geliseen dhagaha horta laga raacay wali uusan soo gabagaboobin muuqaalkeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa dooddu waa socotaa iyaguna waxay ku doodayaan shacabkii baa nagu soo qaxay shacabkii baa sidana yeelay shacabkii baa nagu soo ooyay dadku waa dadkii nala dhashay dadku hadda waa isku waa walaalo xuduudan baa u kala waxaysan mooyeen waa dadkii wada dhasho waa ehel waa qaraabo waa la soo ooyay oo intii baa anaga taasna ala albay afka furteen wali laakiin go'aan lama soo saarin muuqaalkeena dambe idin kula wadaagi doonaa wixii ka soo kordho xaaladda Dawacaalayna way degan tahay ciidanka farda awliyo ee ciidanka new booliska deegaanka gacanta ku haya shacabka dawladda deegaanka Soomaaliduna hadda ayay bay indhaha kala qaadeen oo xaalkoodu waxa weeye hadda ay toos u soo galeen waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho